waxaa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle dib ugu soo laabtay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare oo muddooyinkaniba kaga maqnaa safar kala duwan oo uu ku soo bixiyay gudaha dalka iyo dibadiisaba. Madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa waxaa si diiran magaalada ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada, ururada kala duwan ee bulshada iyo waliba mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle. Kadib markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada waxaa loo galbiyay xarunta madaxtooyada ee maamulka Hirshabelle halkaas oo saxaafadda uu kaga warbixiyay safarada uu ku maqnaa iyo waxqabadka maamulka Hirshabelle ee muddada uu maqnaa uu soo ziyaadiyay. sida aad ka warqabtaan waxaan ku maqnaa safar aan ku tagay wadanka aan walaalanahay Djibouti kaasoo ujeedada ugu weyn ay ahayd inaan uga mahad celino dawladdaas aan walaalanahay ciidamada AMISOM oo ka jooga Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan sektorka afraad iyo in la dardargeliyo sidii jidadka loo furi lahaa arintaasna si fiican oo dadnimo leh ayay noola qaadeen wixii anaga xaggeenaane inaan diyaar garowno ayaguna wixii xaggooda ay diyaar garoobaan arintaasna howlgalkaas la galo si wanaagsan culayska ka jira xagga abaaraha gaar ahaan webiga guray Soomaaliya oo dhan waa ogtahay culayskaas ayaa markaan oo dhan waa jiray horena waa uga hadalnay waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka iyo bahda caalamka inay arintaas wax nagala qabtaan waxa kale oo ayaduna fursad ah oo jirta in wasaaradda beeraha iyo wasaaradaha kale oo la xiriira in webiga intuu hadda qalalan yahay la dhiiqa bixiyo wax laga qabto la hagaajiyo kaliyadii biyaha mataqaanaa kaydka loo furo kaydkii naftiisa inkastoo mashruuc oo aad u soo daahay مشروع دقيقة بحنت كلية سبون هي مشروع فاو ورنتي آد نوجد داهي وحن أسرنا كباقينا إن آدنا لو كدر جليو. عبد الفتاح أحمد معلو عبد الفتاح زكي بولشة TV جوهر.